السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يا شارب جنال وله قعمة فرن عافمات وناك صاحب تنمو كسود وهذا استوديها ده شارب جنال تي في صاحب يال عد وأكتهين وحني كبرية لينك عصنية وجنال كعصنية وأنا كوذا هلين إن شاء الله شرفي كرامنا كجاية لايكتا سبسكرايبكا iyo commentiga ما شاء الله waxaan caawi hadda u soo galay saacadan warbixin cusub oo degdeg ah wararkii ugu dambeeyay ee janaalka shaariba uu heliyo in dawladda Itoobiya ra'iisul wasaarahooda mudane Abiy Ahmed uu si buuxda uga codsaday madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in madaxweyne Farmaajo iyo asagoo wada socdo oo wada saaran diyaarad khaas ah ee ka degan Hargeysa warka waa la xaqiijiyay inkastoo maanta baarlamaankii Somaliland iyo golaha guurtooduba ay diideen oo yiraahdeen arintaasi ma soo dhaweynayno laakiin waa arin Itoobiya ay xoog iyo awood ku saarayso Abiy Ahmed in halkaasi uu ka dhaco shir saddex geesood ah oo saddexda mas'uul ay yeeshaan asagoo Abiy Ahmed dhexdhexaadiye ka ah wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in madaxweyne Muuse Biixi arintaas uu ku celin doono mar labaad baarlamaanka Somaliland iyo golaha guurtida labada aqalba una dhowdahay in la aqbalo sababtoo ah Itoobiya qayb waxay ka tahay amniga Somaliland qof walba uu ogyahay amniga Somaliland ay qayb ka tahay oo waxa weeye xagga ammaanka ka taageerta waliba warar hoos sheegaya hadii arintaas laga goos adeego Somaliland ka goos adeegto waradii lihi jiray maxaa la yiraahdaa ii shay qaybtan buuhodle iyo dhinacan Samaroon iyo Rubahante iyo intaas oo dhan inuu kicin doono oo halkaasi uu ka Itoobiya xaaladeedu waa taqaanaro cidii amarkeeda diida gobolada Soomaaliya laga dhaxkuta marka runta soo sheegno cidii ka soo horjeesatana waxay ku kicinaysaa mucaaradad weyn way kala tuuraysaa wala taqaanasi wax u kala tuuraan marka dhibkooda allaha umada ka hayay Itoobiya laakiin waxay ka shaqeynayaan labada mas'uul ee Farmaajo iyo Muuse sidii ay u kulmi lahaayeen wararkaasna aad iyo aad ay isku soo tarayaan marna waxay soo gudbinayaa insha Allah warqadii qoraalka ahayd ee loo diray dawladda Somaliland maamulka Somaliland oo codsiga rasmiga ah ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ka codsaday anaga marka muhiimad maxaan u ah Soomaaliya ayadu waa hadasho shisheeye soo dhaxgelin taasa muhiimad noo ah Farmaajo iyo Muuse Biixi walaal mas'uul walaal noo Soomaaliya is aftaqaana telefoon bay ku hadli karaan oo ay iska dhigeysan karaan wixii aaraa ay kala qabaan ku dhamaysan karaan waddan kale isku arki karaan ka bacdi ku balami karaan in Muqdisho iyo Hargeysa lagu kulmo wax dhiba ma lahan intii Suudaan ay iska go'in kulligeen waxa la soconaa Jubba meeshan la yiraahdo caasimadda Jubba tahay South Sudan Suudaantii kale iska go'in way kulmi jireen Al-Bashir iyo John Grant madaxweynihii hore ee waddankaas South Sudan ee hadda geeriyooday mar hore geeriyooday wuxuu ahaa magaciisu John Grant nacam iyo Al-Bashir way kulmi jireen kadibna go'aan waxay ku gaareen afti in loo qaado halkaas sidii bana uga go'een marka malawano Soomaaliya oo walaalo ah oo isfahmaya oo mar walba telefoon isku dhageysan kara way fuudahay inay kulmaan insha Allah waxaan filaynaa sidii qeyb ku jiro in ay arinta u dhacdo la wada hadlo la heshiiyo Soomaalinimada iyo midnimada iyo wanaag laga wada hadlo mar walba la isku soo laabto oo wixii markaas ay isku fahmi waayaan ay ka wada hadlaan insha Allah biidnillahi kariim wasi wada soconayna warbixinadan way soo tarayaan mar walba waa la socodsiinayna insha Allah waxayna u badan tahay inay kulmaan oo halkaas isku tagaan ay u badan tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi inay isku tagi doonaan oo shir saddex geesood oo ka dhici doona Abiy Ahmed wuxuu wato sida aan wararka ku hayna waxa weeye oo uu rabo in Allahumma musta'an markii uu halkaas u furmo ay labada madaxweyne ee Hargeysa iyo Muqdisho ay kulmaan oo ayagu marka dambe ay ballamada sameystaan ay kulmaan oo mar walba
ay ayagu wixii ashqaasa iyo axwaal ah oo ay ka wada hadlayaan oo labada geesoodka ay ka wada hadlaan asaguna uu ka dhex baxo annaguna waxaan u aragnaa ninkan la yidhaahdo Abiy Ahmed nin siyaasadiisu furan tahay cadowtinimo badan aan qabin kasoo jeeda dad Oromo ah oo muddo badan la gumaysanayay oo lagu gumaysanayay meesha la yiraahdo ishaag gobolkooda ugu badan yihiin ilaa iyo Addis Ababa ay degaan ee marna nimankii la dhihi jiray amxaaradu ay xukunka haysteen marna ay gumaysanayeen oo madax ugu taagnaayeen nimankii Tigreega ahaa ee Meles uu ka dhashay sidaas iyo wada socod wacan insha Allah warbixinada dambana waa wadaagayna inta caafimaadka qabto caafimaadka Allah u siyaadiyo inta farxad qabto Allah u siyaadiyo inta xanuunsan Allah caafiyo hada shareka subscribe-kuna waa dhinaciina saab mar walba aad nala socotaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin mar walbana waa imahad celinayna